dhammaan axsaabta iyo qof walba fanaaniinta ciidamada amniga ururada bulshada salaatiinta hooyooyinka kulligii waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan isleeyahay caawa waxay ahayd sagoobsiya dardaaran hadalladu inta badan maalintii dhoweyd baa la yidhi oo siyaasiyiinta iyo wixii laga hadlaya laga hadlay laakiin waxaan rabaa inaan noqdooyin yaryar taabto Soomaaliya waxaa in badan laga hadlay oo ay garanayaan dadka Soomaaliya ku noolaa ee soo joogay ee aan dibad uga imanay gudaheeda ka shaqaynayay marxaladii la soo maray say ahaayeen boogaha ku yaala iyo nabarrada dadka Soomaaliyeed ku yaalay waa mid walba si fudud ay u xusuustaan oo ay garan karaan waxa Ilaahay mahadii ah inaan ka gudubnay marxaladii qabiilka oo maanta aynay jirin cudur qabiil oo Soomaaliya ka jira maanta ma jiro cid qabiil isu haysa iyo cid qabiil wax ku tirsanaysa iyo qabiil wax ka sheeganaya qofka markaa goobjoog u ahaa wixii dhici jiray wuxuu garanayaa waqtiga maanta uu ku jiro alxamdulillah sida ay ahayd iyo qaabkii la soo maray ninkii gudaha ku jiray baa garanaya haddaba boogta ooli kartaay baahida Soomaalidu waxa maanta ka dhaxeeya waxa isku qaban kartaay xalka ay yeelan kartaay waa maxay waa wax ku saabsan hoggaan horena waanu sheegay waxay u baahan tahay qiyaada raashida waxay u baahan tahay hoggaan damaca siyaasaddu iyo kala aragtiduwanaanshaha siyaasadda iyo hanqaltaaga siyaasaddu ma aha in loo geliyo suuro qabiil oo loo geliyo shaarar kale waa in sida ay tahay loo wajaho waxay ku soo socotay Allah u naxariistay markii Cabdullaahi Yuusuf uu wareejinayay isagoo garanaysaan kifaaxa iyo inta dhib uu soo maray haddana markii la yidhi Cabdullaahi oo dhamaysan sidaa kaga tag intuu wareejiyay buu labadii qolo muqaawamadii iyo dowladda TFG inta la isku daray yaa baarlamaan 550 uu ka soo baxay Sheekh Shariif baa loo dhiibay oo qoladii markaa muqaawamadii ee la dagaalamayay ka horjeeday dowladda ahayd dib u heshiisiintii la qaaday waxay gaadhay markaa inaan imbagaatina lagu qabanin cartana lagu qabanin ee xamar ay ka dhacdo doorasho oo Sheekh Shariif isagoo la waqtigu uu yaray aad sii wadid oo malaha meel baad sii gaarsiin lahayd intii looga guuleystay Xasan Sheekh oo markaa dalad waxbarasho iyo jaamacado ku mashquulsanaa aan laga filayn yuu ku soo booday sidaas kursiga ku yido Sheekh Shariifna uu yiri Xasan aad baad u mahadsantahay oo ku wareejiyay madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu qayb ka qaatay isagu markaa dhamaystirkii dawlad goboleedyada iyo sistemkii federaalka lagu heshiiyay bal inuu gaarsiiyo walow markii ugu horeysay la qabsashadu ay iska bilow ahayd haddana wuxuu gaarsiiyay inuu intuu dhisay isteediyadii intii markaas muuqatay ay noqotay dawladnimadii dalad in la sameeyay National Leaders Forum ki madashii aan sameynay madaxdii dawlad goboleedyada iyo madaxweyne Xasan Sheekh intii la isu yimid ay noqotay wax dhab ah war xageen u soconaa xageen joognaa maxaan sameynaa habeena badan intii lagu dhafro iyadoo garanaysaan qofka markaa suldada hayay fursado badan oo isagu uu samaysan karaa inay jirto haddana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed wuxuu banaan ka dhigay ku darsasho inay xaaraan tahay wax gooni uu gaaray inay xaaraan tahay aan sunnimaadno inteeni meesha joogtay oo aantaan tashanno aan isweydiino xageen u soconaa doorashaan ugu soo socota 2016 hal qof iyo hal cod baa dastuurka ku qoran ma gaari karaa ma halkii oday baan u daynaa dood dheer iyo hawl dheer waxaan galay in la qaato in isteediyadii mar haddii dhismeen dib loogu celiyo xildhibaanadii la qaybiyo deegaan doorasho ay yeeshaan matalaad ay yeeshaan dad soo xulo ay yeeshaan aqalkiisa laga heshiiyo ay sidaa noqoto xilliga iyada baarlamaankii joogay wuxuu diyaar u ahaa aw sheekhow weli waa gaarsiin doonaa bal 2 sano aan ku dhufano horeen aan u siiyay jiidno xogaa midheeraa ku jiray
laakiin halkaasuu ka istaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo intaasoo dhan sameeyey wuxuu ku tala gashanaa kollayba ninka soo noqonaya inuu yahay xafladii way u diyaarsanaayeen laakiin qadarta alla madaxweynaha maanta maxamed cabdulaahi farmaajo oo laga yaabo hanka ku jira inuu aada u waxaysnaa yaa wuxuu noqday ninka u soo baxay ee ku guulaystay kursigii yani waxaan fiiri cabdulaahi yuusuf intaad ogeydeen buu soo dagaalamay allah u naxariistee kursigii wuxuu ku wareejiyey wadaadkii la dagaalamaya muqaawamada maxaakimta habaaleen orina waddanka meel kalu ku socdaa intuu dhib kala gaari lahaa cabdulaahi oo ka tag haatan waalidiinta ayay buuhi cabdulaahi meel buu ka fadhiistay xasan sheekh maxamuud isagoo kumeelgaarkii intii laga saaray aada uu waxaysan yahay oo wax badan lala daba ordayo sheekh shariif oo markaa xulkii hayay oo muddaduna ay ku yeedheen aad garanaysaan maxaakiimtiina saaxiibadayda meesha joogay iyo hogaamiye kooxeedyadii iyo wixii dhib gaadhay iyo awooddii lagu lahaa iyo suuq ku soo baxay xasan sheekh maxamuud oo dalada waxbarasho iyo waxbarasho ku mashquulsanaa oo shaqadaa ku jira ee wadaadka shariifku una iskaba filayn yaa meeshii ka soo baxay wuxuu yidhi cabdiweli gaas baa yidhi xasan sheekh baa ii yimid oo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad taageerto warrinkan suuqa joogay taageerle anaaba wixii haysta ra-iisul wasaarena see inuu taageeraya waaliba ilaahayd buuli madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaa isagoon filaynin oo isla hadda cid intay kula tartantay wadaad qurbo ka yimid iyo nina waxba kuma yeelayo yaa isagana maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta ilaahay u qoray inuu madaxweyne ka noqdo yaa intuu yimid yaa aayar madaxweyne xasan sheekh intuu ka luuday oo weliba labadii madaxweyne ee ka horreysay ay garbaha qabteen baa si sharaf leh la isugu wareejiyo nin weliba kuli aleele calafkaaga kugu timi haddaba maanta waxaa aada u yeelisa guux badan damac badan xaggee loo socdaa 2020 extension ma sidanaa la yeeli maanta waxaan arkay waxyaalo meelo ku qorqoran single constituency wax la yidhaahdo hal deegaan doorasho wax badan baa laga hadlaya waxaasi waxay abuurayaan markaa boogo badan iyo nabarro badan iyo fiiq badan bay kicinayaan waayo dadkii shalay ka soo tegay ka tegay damcu ku wada jiro ninna ma ogolaanayo wuxuu shalay diiday sheekh shariif 4 sano iyo 5 sano rabay xasan sheekh inuu wax ku darsaday waa la rabay hebel waxaasoo dhan way ahay cabdulaahi allah naxariis wixii buu kaga tegey waxaasoo dhan markay dhacayaan markaa qof waliba wuxuu kaga tegey wuxuu rabaa inuu ama dariiqii ku helo ama ku waayo waxaan rabaa dowladda maanta jirtay saaxiibkay maxamed cabdulaahi farmaajo inuu taariikhda dib u akhriyo isaga iyo dowladdiisa iyo sbiikarkiisa iyo kulligood ay gartaan raggii horey ugu soo wareejiyey baashan qoriisu dhiibka ku soo wareejiyey maynan u suurto waayin inay waxuun dabada meermeeriyaane waxay ku wareejinayaan dariiq saxa inay ku talagalaan oo ay dhammaystiraan sida kuwii ka horreeya ay u dhammaynayaan dariiqa la marayo iyo doorashadu noocay noqonayso iyo wakhtiga in la ilaaliyo iyo inaan lagu fakarin isku darsi iyo in dastuurkii laga shaqeeyo iyo in wax la wada qabsado iyo in talada la wada leeyahay waddankii waa federaalism buu qaatay isagaasaa wax lagu maamulaa dowlad goboleedyadu xilligii hadda madaxweyne xasan sheekh dowladdii federaalkii hadda soo jirtay tala wadaag bay ahayd wax la isla saxayay maanta waxaad dareemaysaan dowlad goboleedyadii waxaa hadda laga hadlay axmed adigaa ka soo hadhay soo saas maaha cabdikariim waa fadhiyaa shariif xasan wuu fadhiyaa cabdiweligaas meelahaasuu wareegaya isla riijinta badan ee hadda dowladda federaalka aada u odeysa waxay tahay warrinkan fadhiyadii horuu ka qayb galay isaguna hana dhaafo laakiin ani weli waan soo taagnahay sababtoo ah dariiq baan rabaa inaan ku baxo markaa waxaan rabnaa saaxiibaday madaxda dowladda federaalka waan ogollahay waa madaxdayadii gogasha xafladda inay nagala soo qayb galaan aad bay u ficlan inkastoo abshir uu matalayo waxaan rabnaa waddanka iyagaa xukuma iyagaa waalida iyagaa laga rabaa mas-uuliyadda inay iyagu qaataan oy waddankan hagaan baa laga rabaa annagu khilaaf ma wadno xumaatadooda kama shaqaynayno wanaag baan rabnaa hogaamintoodaan rabnaa waktigooda inay dhammaystaan baan rabnaa kuwa damaca kaga jira inay doorasho sidii shalay nin waliba ku yimaadaan rabnaay aan ilaalino oo middaa ha ka shaqeeyeen oo madaxda dowladda federaalka dowlado kale iyo cid baa faragelisay iyo wax walba
haddii inagu dhexdeen aan wax isku qaqabanno inaan wax kale iska sheegno waxyaalo kale isku tuutuuno dowladda la isku tuumo waxaas oo dhan way imanaysaa maxaa lagu sixi karaa wixii xumaada maanta waxaa iska leh mas-uuliyadda madaxda dowladda federaalka Soomaaliya sababtoo iyagaa waalida iyagaa mansilatu ab taagan iyagaa laga rabaa wixii khalada inay sixitaankiisa ka shaqeeyaan oo ay dariiq sax la isugu yimaado ay keenaan waxaa laga yaabaa oo rabaa inaan meesha ka saaro madax badan baa caawa halkan fadhida gobolka Banaadir iyo Muqdisho iyo wax badan baa laga hadlaya sometimes waa la suura qabiileynaya dareen kala la bixinaya maanta xamar qabiil kama jiro dagaal qabiil kama jiro waan garanaynaa xamar dhibaatada ay soo martay 91 afartii bilood ee ka daray Caydiid iyo Cali Mahdi sidaa daraadeed xildhibaanada labada aqal مسؤوليين تكره ملاحظة كله كل وضع حالنا وران كوضع شقينا ودن كان حل سيدان وقارنا عن كوضع شقينا إننا خصوصا وحد به بنانا يوناج إمام وضع يحلم عن كل يوم إننا نقارنا عن كافتون القعان بين هذا ما أنت وحلا يا الله يا أفر يوم أكتوبر واللح بقول إيه أنت سوقف أي كل مطر إلهي بأن كل اللي وينال يربع أنت سوق بتاعك جيستي inaan intaan istaagno maalin walba foorarsanno oo ilaahay loo duceeyo oo kan hal la sameeyo oo ayna waxba ka qabanayno oo aan rabno amisom inayna waardiyeyso oo ayna waxba dhisanayno oo inaan iska celinayno maalin walba macnaha baan ku jirayna iyo hal la aamuso iyo sidaan hal la yeelo dadka yuu sugaya yaa mas'uulka inta aan wada qaraabanayna xoolo wada raadsanayna si kale loo wareegayo waxay la tahay inaan ka shaqeyno dalkeena iyo dadkeena inaan cadawgana ka horeyno sharaftii aan shalay lahayn aan soo celino haddii kale inaan istuhunno iyo inaan meel isku riixriixno intuba meesha imanaysaa wax saxana ma noqonayso dastuurka in la ilaaliyo waa shay waajiba waxaan waa wax bulshadu ay ku heshiisay haddaan isaga la ilaalinin oo isaga uuna ina kala hogaaminin oo isaga aynaan ku dhaqmin sina uma kala adkaanayno ninna nin kama adkaanayo kaasaan ku kala adagna isaga aan ku kala dambayno isaga aan isku baqalo waxaan diyaar u nahay xaqa aniga uu isiinayo dastuurku inaan qaato xaqa dowladda federaalka ay leedahay inaan siiyo dowlad goboleedyada nin wax sheeganaya nin maanta jooga ku kaloo la geeyo nin waliba maanta calaalkiisa uu qabaa xuquuqdii u lahaana ma helo maanta dhaqaale badan baa waddanka soo gala deeqaa la bixiyaa waan soo dhaweynaynaa deyn in la cafiyo wax walba in la sameeyo laakiin dee xaggey gaadhaan ma hayno maa shahidnaa maalika ali waala wax ka baxay xataa war looma ayaa laga hadlaya waxaan rabaa qof kasta oo xal Soomaaliyeed hayo keenayo ka shaqeynaya diyaar baan inaan garab istaagno gabadh baa galmudug ka hadlaysay reer galmudug iyagaa isa sixi kara khaladka galmudug ka jira anuu uma taagi cid kale uma tiirinayo reer galmudug ha isa sixeen iyagu xaqa dastuurka uu siinayana ha qaateen dowladda dhexe waxay leedahay ha u daayeen oo waxa dhexdooda ku jira ha xalliyeen oo wanaag ha ka wada shaqeeyeen waxay la tahay aan midaas ka shaqeyn haddaan Jubbaland nahay sidoo fartaa ka hadlayay shalayna dib u heshiisiin baan ahay waxaan diyaar u nahay ta gudaha iyaga iyo ta dibadda iyo midda dowladda federaalka iyo qof kasta wax naga sheeganaya si kasta oo uga garbixi kara inaan diyaar baan inaan qabsoono say doontaa u adkaato waxaan diyaar u nahay inaan nabad ka shaqeyno oo qabsoono laakiin waxa aan ku kala bixi karaa ha noqoto sharci uu hogaamiyo waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan aad idinku mahad celiyo oo aan idinka mahad celiyo kala soo qaybgalka aan nagala soo qayb gasheen saaxiibaday cunaqabatayntu diyaarada iyo hawo iyo ceriya dhul la xirayo weli way iska taagtaagan tahay Siciid baan uga mahad celinayaa safarka uu soo galay iyo meesha dheer Sheekh Shariif saaxiibkeena waan ugu sii mahad celinayaayo baraaruga badan isaga keenayba isagoo Istanbul ka soo duulay taransir waan ku soo gudbaya celintii la celiyay waxay keentay isaga laftiisa dareen aan ku jirin baa galay war maxaa lagu celinayaa ninkii shalay garoonka furay baad ahayd
waan uga mahadcelinayaa kulligood inta timid oo dhan nin walba mahadiisa meeshaa ka qaato aad baad u mahadsantihiin magaaladiinni baad joogtaan kaafiyaad joogtaan nala sii jooga aan wada joogno annaga culays idinkuma qabno haddii la tegayana si nabada ku taga haddii Jubbaland intiinaasi mas-uuliyaddu ay saaran madaxweyne Siciid baa jooga hadda systemka ku jira senatarkaa jooga abshir dowladda federaalka iyo cidda wax naga tabanaysa iyo kuwa annaga gudaha ku jira intaba waxaan diyaar u ahay inaan wax kasta oo garbaxa oo dowbaxa oo sharci ku dhaqana oo wada hadala oo badbaado ah oo xal ah inaan gaadhnaan diyaar aho laygu mateli karo qof waliba lagu mateli karaa wixii xal iska daaya kuwa ila jooga ee hadda magaalada jooga ee wax tabanaya qof kastoo intiinaa ka mid mas-uul buu iga yahay wakiil buu iga noqonaya inuu xal ka keeno warcad soo maaha yaa la isxamanin masma qaninin iyo dibqalo waa qanine maaha aad raalli oo aada waan u mahadcelinayaa reer Jubbaland suldaanka warkaas boobay kulligii laakiin isagu ciidanku ka tagay ana ciidankan ku daraya aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu